الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا وجعلنا من المسلمين، ثم الصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيد الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. waxaa mahadle ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo saamaxay inaan iskugu imanno fadhigan qiimiga badan in ku dhegaysanayno kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sallallahu alayhi wasallam. waxa aan jeclahay caawa inaan ka hadlo sideen ula dhaqannaa, sideen uga faa'iidaysanaa kitaabka ilaahay ee qur-aanka ee ilaahay uu inoo soo dejiyey tabaaraka wa tacaala. kitaabkan qur-aanka ah sidee baan uga faa'iidaysanaa, sidee baan ula dhaqannaa annaka oo raacayna dariiqadii nebiga sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal, marka hore waxaan ogaanaynaa ilaahay jalla wacala xikmaddiisa wuxuu ku gartay inay bini aadamku u baahan yihiin kitaab noloshooda dhaqa, oo ayna suurtagal u noqon karayn inay noloshooda dhaqaan iyaga oo ka maarmaya kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala. maxaa yeelay ilaahay isagaa abuuray bini aadanka, wixii dantiisu ay ku jirtana isagaa yaqaana, wixii dhibaata uga imanaysana isaga ayaa ugu ogaasho badan ilaahay tabaaraka wa tacaala. ولهذا buu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi في سورة تبارك أنبأ الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إلهي يا وحو أبوري وحي أبهيهين، وأنا خبير إلهي أرمه ضدك بني آدم كأبهيهين آد رحمانكو قرآنك يساقا سودجي، بني آدم كان يساقا أبوري. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إلهي وحوري إنسانك رحمانك قرآنك سودجي إنسان كان أبوري، لبدا مركا إلهي بأسكو أبوري تبارك وتعالى. إذن إلهي حكمتي سوحي قراتي إنه نقفك بني آدمك إنه لا كريم بدون كتاب الله. هدون نولادنا نولجيزو أي نقون يسا خلاد سيدو قرآنك كيولي إلهي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنصر. qofka ka daba jeesta buu ilaahay yidhi dikrigayga oo qur'aanka ah waxa uu ku noolaanaya adduunka nolol khadhaadh, isagoo wax walba haysta, oo cilmi teknolojiya iyo dhaqaale haysta, oo caafimaad u buuxo, ayuu haddana noloshiisu ay khadhaadh noqonaysaa, dhadhan ma yeelanayso. ilaahay markaa wuxuu yidhi intaasi waa adduunyada, ee aakhirana waxaan soo saaraynaa isagoo indha qabin. wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa. markaasuu dhahayaa: rabbii lima xashartanii acmaa, maxaad ii soo saartay anoo indhala, waqad kuntu xaaladayduna ahayd basiiran mid wax arkaya. ilaahay wuxuu ku odhanayaa: kadalika atadka aayaatuna, aayaadkayagii baa kuu yimiday, fanasiitaha waad ilowday. wakadalika alyawma tunsaa, maantana adiga sidaas baa lagu ilaawayaa buu ilaahay odhanayaa tabaaraka wa tacaala. idan marka koowaad waxa weeye kitaabkan ilaahay ee qur'aanka ah waxaa ku jira maslaxadeena, danteena ku jirta, hadday noqoto adduun iyo hadday noqoto aakhiro. wixii aan ku badbaadaynay baa ku jira, najaadkeena waxaa ku jira wixii hagaajinayay nolosheena. ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam. qur'aankani dadka wuxuu ku toosinayaa, ku hadaynayaa wixii ugu toosnaa, dariiqii ugu fiicneed. yacni sida ugu macaan qur'aankaad ka helaysaa adduunkan, waxa kaleetoo dhani waa baatil. ilaahay wuxuu yidhi: ina hada lahuwa alxaqu alyaqiin. qur'aankani waa xaq ilaahay soo dejiyey oo la og yahay. dalika alkitaabu laa rayba fiihi. kitaabkan qur'aanka ah wax shakiya oo ku jira ma jiro inuu ilaahay ka yimiday tabaaraka wa tacaala. idan allah jalla wacala خالق وين إن أبوري إن أومي
wuxuu ugu talagalay kitaabka qur'aankii inuu noqdo ka nolosheenna hadaya ee hagaya, wuxuu ugu talagalay ka nolosheenna ilaalinaya. qur'aanku waa nuur, waliba waa nuurun mubiin, waa nuur cad. culammadu waxay dhahdaan waxaa laysku daray iftiinku muxuu sameeyaa? waxbuu caddeeyaa. laakiin waxa yaab leh waxa weeye ilaahay wuxuu ku tilmaamay qur'aanka nuur, wuxuuna raaciyey mubiin, ay mubiinun lidaatihi, isagaa iska cadba, hun baana wax caddeeya. ilaahay baa soo cadcadeeyey tabaaraka wa tacaala. inaan baranno un bay u baahan tahay. marka kitaabka qur'aankii waa kitaabka ilaahay uu ku tilmaamay inuu yahay rabbaaniyulmasdar. kitaab walba qiimihiisu waa qofka abuuray weeye. masalan kutubta waaweyn ay ragga waaweyn qoraan waxaa lagu ammaanaa hebel baa qoray, laakiin qur'aanka hebel ma qorin. laysa min cindi muxamed, nebi maxamed ma aha sal salam, saxaabada ma aha, qof cilmi badan ma qorin. waxaa qoray oo soo dejiyey oo ku hadlay allah. idan qiimiha uu qur'aanku leeyahay waxa weeye waa qiimatullah, ilaahay qiimihiisuu leeyahay tabaaraka wa tacaala. لهذا أبو إلهي جل وعلا وكتل مامي قرآنك إنه يهي كتاب أنزلناه إليك. نبي محمد وكتاب أنكو كوسو دجني هالكادا. قرآنك أنا كاسو دجني، إيان كوسو دجني، هذيك أن كوسو دجني نبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كتابك قرآنك أهمية بولي ولا importance أم أهمية قارة أي قرآن كلية. مركو هره qur'aanku waxaa la iskale ilaahay. waa marka labaad waxaa soo xambaaray malaa'igta malaga ugu weyn oo jibriil ah calayhi salaam, oo malakun kariim ilaahay ku tilmaamay, malag qiimo badan leh. waa malaga malaa'igtoo dhan xakuma, ayaa lagu soo aamino le adigu qaad. ilaahay qof maaragtay ka hortagi kara wuxuu samaynaya maaha, laakiin wuxuu ugu soo dhiibay jibriil calayhi salaam. qur'aanka waxaa lagu soo dejiyey afdalu lkhalq, adduunka kii ugu fadli badnaa. wuxuu ilaahay abuuray min alcarshi ila alfarshi, dhulka ilaa carshiga, oo ah nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam. ilaahay qur'aanka wuxuu ku soo dejiyey calaa nabiyihi wa safiyihi wa khayri khalqihi. arrinta afraad waxa weeye qur'aanka waxaa la soo dejiyey bilaha dhan ka wada khayr badan, shahru ramadaan. ramadaan waa bisha ugu khayr badan ilaahayna gaarsiiyo bilaha 12 bilooda. bishaa buu soo degay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan. qur'aanka waxaa la soo dejiyey habeenka adduunka ugu khayr badan, leylatu lqadri. ina anzalnaahu fii leylati alqadri. waxaan soo dejinnay habeen sharaf u saaxiiba iyo wanaag iyo deeqsi iyo karaamad. إلهي مالك لو حكوت المامي إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قرآنك وحان سودة جنة هبين بركيسة. إذا قرآنكم وحا كلو لي هاي خصائص تيسا أنو سودة هبين كأبو شرف بدن أدون كورا. ليلة القدر خير من 1000 شهر. قرآنكم حكو سودة ماشي أدون كأبو خير بدن مكة المكرمة. إلهي إن أول بيت وضع للناس للذي فيه أدوك وهو إلهي أبو ري إن لقوا عابده ومكة. قرآنك وحا لقى سوق هذا بيت المعمور ماشا ملائكته إلهي كو عابده سمدا. وحا لقوا سوق دجي بيت الحرام كعبد بني آدم إلهي كو عابده. إذن قرآنك قيمها انتها لك بالسيدي. كتابك قرآنك ولا ليال waxaa ka mida waxyaalada ilaahay uu siiyey isagaa leh, qofna lama leh. labo, ilaahay wixii bini aadamnimadeena dhisayay baa ku wada jira, hadday tahay maankeenna, hadday tahay qalbigeenna, hadday tahay jirkeenna, hadday tahay qoyskeenna, hadday tahay bulshadeenna, hadday tahay dhaqankeenna, hadday tahay dhaqaalaheenna, hadday tahay horumarkeenna adduun, hadday tahay kor u kaceenna aakhiro iyo jannada meeshaan ka galayno. كل شيء قرآن كم بإلهي دحكري. إلهي وحوري سبحانه قرآن كوحان سود الجني تبيانا لكل شيء. سوى وحوال بعضينا يا أو معنينا يا وحمنا كمتي. قرآن كالسؤال ونك جوابه مجرته. وحضبا هنتهي أو قرآن كم مقاني مجرته. وحيك هجبا هنتهي إن تكدوا دون تدون
waxaad rabtid kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala. qur'aanku kitaab dad loogu talagalay gaara maaha. qur'aanka wadaadadu ma leh, waranleyduna ma leh, raggu ma leh, dumarku ma leh, culummadu ma leh, caamadu ma leh, carabtu ma leh, cajamku ma leh. qur'aanku waxa weeyaan tabaaraka alladii nazzala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira. adduunka dhan buu u yahay digniin qur'aanku. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. marka kitaabku waa arrintaas wey, waa caalami, waa caalamkoo dhan. waxa u baahan dadka ku nool yurub, amerika, afrika, carabta, cajamka, qof aan qur'aanka u baahnin ma jiro. qof kastiba qur'aanka markuu fahmo uu gacanta ku dhigo, noloshu dhadhan bay u yeelanaysaa, noloshu macnay u yeelanaysaa, noloshu isbedel baa ku dhacaya. qofka bini'aadamka wuxuu u dhowaanayaa xaqiiqadu arkaya siday wax yihiin iyo qur'aanku ku tusaya. qur'aanku wuxuu kaa saarayaa hawaawiga iyo beenta iyo khuraafaadka. qur'aanku wuxuu kaa saarayaa inaad noqotid qof aan qiimo lahayn, wuxuu kuga dhigayaa qof qiimo leh. qur'aanku wuxuu inaga dhigayaa dad ilaahay la nool had iyo jeer tabaaraka wa tacaala. walidaalika qur'aanku wuxuu inaga saarayaa min ashay'iya ila rabbaaniya, inaan noqono shay. dadka adduunku maanta waa shay, materiyaal. dadka iyo waxa isku mid ah baabuurka, qofka iyo birta isku mid ah shosism, waxa dhacdo mekanism. bini'aadankii waxaa laga dhigay wax la leeyahay. laakiin markaad noqotay qof islaama oo qur'aanka ku xidhan, waxaad noqonaysaa qof culus oo ilaahay agtiisa culus, khalqiga agtoodana culus. waxaad noqonaysaa qof samada ku xidhan, qof isdhaafsan baad noqonaysaa, qof midoobayaad noqonaysaa, isma diriraysid. qof laysku kala dhex haysta ma noqonaysid shaydaanka iyo adduunku. qof waxaad noqonaysaa u go'ay allah. khalqiga bini'aadanka ana waxba ka sugay. waxaad wax ka sugaysaa waxa weeye rabu lardi wasamaa, ilaaha dhul iyo cir iska leh. khaaliqu lardi wasamaa, ilaaha cirkiyo dhulka abuuray. khaaliqu nafsi walmujtamac, nafta iyo mujtamaca ilaaha abuuray. khaaliqu lkown, ilaaha kownka abuuray. khaaliqu addunya walaakhira, ilaaha adduun iyo aakhira iskale. walahu dunya walaakhira, adduun iyo aakhiraba isagaa iskale. isagoo qura laguna xamdiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. idan arrintaasi waa muhiim ikhwaani fillah. waa très important inaan qur'aanka gacanta ku dhigno. ilaahay wuxuu yidhi waladiina yumassikuuna alkitaab, dadka kitaabka ilaahay qabsanaya. yumassikuun maaha sabbay u qabsanayaan maaha, qalbiga intay dhex dhigaan ayay ku dhex jirayaan. wuxuu ku dhex jirayaa qur'aanku, qalbiguu ku dhex jirayaa, qofna kama soo saari kara. wa aqaamu salaat, salaadana way oogayaan. ilaahay bay madaxa dhulka u dhigayaan. ilaahay bay isku dhiibayaan tabaaraka wa tacaala. ilaahay bay amarka ka qaadanayaan iyo nahyiga. ilaahay bay la noolaanayaan leylan wa nahaaran, habeen iyo dharaar, sabaaxan wa masaa'an. waagu markuu baryo iyo galabtu markay soo baxdo, ilaahay bay u dhiibayaan arrintooda gaarka ah iyo arrintooda guud. kuwa noocaas ah waxay fahmeen kitaabka qur'aanka. okay, waxa weeyaan ikhwaani fillah, kitaabkan qur'aankii ilaahay buu ka yimid. wuxuu u yimid bini'aadanka. caalamkoo dhan baa in lagu hagaajiyo loogu talagalay. waa shaamil, waxa loo baahayahoo dhan baa ku jira shumuur alxayaat. kitaabka qur'aanka ah waa saanic, waa warshad, waa iziin. qofka inuu dhex gala loo baahaya. markuu qur'aanka dhex galo uu ku dhex milmo, wuxuu noqonayaa qof kale. waxaa taqyiir uu ku dhacayaa caqligiisa, wuxuu taqyiir ku dhacayaa dareenadiisa, waxaa isbedel uu ku dhacayaa akhlaaqdiisa, wuxuu isbedel ku dhacayaa dhaqankiisa, waxaa isbedel uu ku dhacayaa habnololeedkiisa. wuxuu noqonayaa insaanun jadiid, qof cusub. wuxuu noqonayaa qof aanan baan ahayn qof baqa. wuxuu ka xoroobaya cabsida. laa yakhaaf ila allah, ilaahay unbuu ka cabsanayaa. laa yarjuu ila min allah, ilaahay keligii unbuu wax ka rajaynayaa tabaaraka wa tacaala. idan hadihi almas'ala walaalayaal, mas'alada noocaas ah waa daqiiq weeyaan. marka koowaad waxa weeyaan waxaan dhahnay ahamiyadda kitaabka inaan aad u garanno.
kitaabku nolosheenna wuxuu ka bedelayaa walaalayaal inta aan u gelin seel ula dhaqanaa 4 arrin oo muhiim ah. arrinta koowaad oo kitaabka quraanka nolosheenna ka bedelaya waxa weeye aragtideenu bedelaya quraan sidii adduunka loo arkaa. dad fara badan maanta adduunka bay arkaan aakhira ma arkaan. marka islaamku muxuu inoo samaynayaa ru'yad cajiiba vision cajiiba wuxuu ku leeyahay ku noolow adduunka u noolow aakhiro. hadalkaasi waa muhiim adduunka ku dhex noolow leanna meelaha ku noosho kale ma jirto laakiin ujeedadaadu ha noqoto aakhiro sidaad u badbaadi aakhiro ood uga badbaadi cadaabta ilaahay ood u gali jannada ilaahay tabaaraka wa tacaala. qofkaas markaa halkii lagaa bedelay visionkii baa lagaa bedelay waxaad noqotay qof dhahaya rabbana aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana. ilaahu adduunkan yar ee dhowrka cishadana wanaag iga sii. culammadu waxay dhahdeen wanaaggu waa cilmiga fiican amba waa qoyska fiican amba waa maal wanaagsan oo barakaysan. maalka barakaysan baa wanaagsan maalka badan maaha maalka yarna maaha waa maalka baraka ay ku jirto. marka ilaahu adduunkan wanaag igu sii aakhirana ilaahu wanaag igu sii cadaabtaadana iga badbaadi. marka taas buu kaa bedelaya quraanku. arrinta labaad ee quraanku qofka ka bedelaya waxa weeyaan waa nafsi waa psychological ahaan. waxaad noqonaysaa qof degan qof ku xorooba stress ku xorooba istagaal ku xorooba qalaq iyo murugo. waxaad noqonaysaa qof ku kalsoon adduunkan in loo keenay imtixaan waa ibtilaa. hadduu ilaahay xoola ku siiyo waa lagugu ibtileeyey hadduu kaa celiyana waa lagu ibtileeyey haddii caafimaad badan lagu siiyana waa lagu ibtileeyey haddii lagaa yarayana waa lagu ibtileeyey haddii ubad lagu siiyo waa lagu ibtileeyey haddii ubadka lagaa celiyo waa lagu ibtileeyey haddii ubadkaagu ay dhan u bataan oo rag ay wada noqdaan waa lagu ibtileeyey hadday haween u noqdaanna waa lagu ibtileeyey hadday rag iyo haween lagu sukaadarna waa lagu ibtileeyey hadduu nin wanaagsan ilaahay ku siiyana waa lagu ibtileeyey hadduu nin xun ku siiyana haddaad heshin nin xunna waa lagu ibtileeyey haddaad gabadh fiican waa lagu ibtileeyey gabadhaan wanaagsanayn waa lagu ibtileeyey. daartani maaha daartii abaalka maaha waa daarul camal waa meeshii lagu shaqaysanayey. marka adduunku waa balaa waxaa lagaa saxayaa inaad isku istirahdid mata astariix goorma raaxaysan doonaa. axmed ibnu xambal raxmatullaahi calayh qof wuxuu ahaa dadaal ku jiraa subax iyo galab cilmiga dadka bara dacwadda faafiya ummadda saxa madaxda saxa shicibka saxa xaqa sheega cilmiga dadka bara habeen dhara soo jeeda kitaabka uu sita waxaa lagu leeyaa imaam mata raaxa goormaad raaxaysan doontaa. wuxuu uri cinda awala qadamin fi ljanna lugta ugu horeeya markaan jannada dhigo yaan raaxaysanayaa. الراحة هناك وليس هنا. راحة halkan maaha. idan arrinta muhiimka waxa waa ibtilaa. ilaahayna quraanka muxuu ku yiri suuratu al-mulk tabaarak alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. ilaahay geeridana isaga abuuray noloshana isaga abuuray wuxuuna u abuuray inuuna itixaamo wax kale maaha si uu ogaado keena camal wanaagsan sameeya. camalka wanaagsan itixaamku ka soo baxaya ee kama soo baxaya inaa camal wanaagsan samaysid. hadduu ilaahay xoolo badan ku siiyo wuxuu eegayaa ilaahay xoolaha maxaad ka yaraysaa maad bixinaysaa soo ku dhegaysaa ma noloshaad ku hagaajinaysaa adduunyada iyo aakhirada mise bakhiil baad noqonaysaa ma noloshaad maaragtay ku xumaynaysaa oo waad khamri baad ku cabbi oo maaragtay xumaan baad ku samayni habeenkasi waad ku tumani oo misig baad ku ciyaari mise waxaad ku samaysanaysaa wax dadka muslimiinta dhisa. maalkii waa lagu siiyey hadduu ilaahay kaa celiyo liasbaabin maa adoo shaqaysanaya oo doondooni haddana dad weyn ilahay wuxuu eegayaa dadnimadaada inaad soo saartid noqoto qof sabra sidii nebi ayuub haddaad takalana sidii nebi suleymaan inaad shukriyo od ilahay u mahadnaqdid. marka shukrigu waa camal. ilahay muxuu kali nebi daauud iyo nebi suleymaan icmaluu aala daawuuda shukra ree aala daauudow ilaahay u mahadnaqa ininkoo shaqaynaya. idan arrinta labaad uu inaga saxayo qur'aanku waxa weeye waa nafsi. arrinta saddexaad ee qur'aanku inaga saxayo waxa weeyaan uu inaga samaynayo markaan iisiinkiisa warshadiisa markaan gallo waa calaaqaadka xiriirka aad leedahay sidaad u yeelanaysaa maxaad jeclaan maxaad nixi iyaad jeclaan
ayaad necey ka aad jeclaatay maxaad u jeceshahay hal tuxibuhu waxaad u jeceshahay waa reerkaaga waxaad u jeceshahay ilaahay dartii qofka aad necebtid maxaad u nacdaa maaha reerkaaga mise ilaahay dartii qofka aad soo dhoweynaysid maxaa u soo dhoweysaa cilaaqaadka islaamku uu dhisayo waxa weeyaan inay noqoto lilaahi faqad ilaahay dartii nebigu wuxuu yihi calayhi salaam man axaba lilah وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان قفك إلهي درتي وحو جعل هذا إلهي درتي وحو نعه إلهي درتي وحو بحية إلهي درتي وحو منعية إيمانك أبوحي استكمل الإيمان إيمانك سوى بوحة القرآن وحو نبرا يا واحد عضو علاقاتك حريرك يونغس حياة حريرك على لأنها شيء shayga madaadkiisaan u jecelahay xoolaha ma iyadaan jecelahay maya waxa weeyaan inaan ilaahay ku caabudnaan doonin maxaad u guursanaysaa inaad ilaahay caabudtaa doonaysaa ubad maxaad u dhalaysaa inay ilaahay caabudaan baad doonaysaa maxaad kownka maaragtay bini aadanka maxaad u shaqaysataa subaxi galab ilaahay baan dartii baan u shaqaystaa maxaad u meedhataa ilaahay dartii baan u meedhaa yacni xiriirka aad la leedahay qofka xayawaanka in noqdo cilaaqad ilaahiya taasina u kaa saxaya arinta ugu dambaysa waxa weeyaan quraanku inaga saxay waxa weeyaan inaga qaadaya dhulka wuxuu inoo diidan yahay inaan noqono dad maadiyiina oo materiala wuxuu ina geenayaa samada wuxuu ku leeyahay quraanku waxaad ka abuuran tahay laba shay wax maadada oo dhulka laga keenay minha khalaqnaakum wax materiala waxaa kugu dhex jira wax materialka ka culus oo ruux la dhahdo oo samada ka timid labadaa markay kulmeen buu qofku noqday qof marka insaankan ruuxdiisu samaday ka imatay ilaahi baa ku dhex jira maadaama aad sidaa tahay waxaad leedahay abtirsiin cirka ah iyo abtirsiin dhulka ah marka ay loolamaan ka badiya iyo guulaysta hadduu badiyo dhulku qofku waa kan dee cibaadaysanayn ilaahay baryayn salaad tukanayn quraan akhrisanayn hadday badiso ruuxduna waa kan dhinaca samada u kacaya ee soomaya ee dikri akhrinaya ee salaad tukanaya ee ilaahay ku xidhan idan qur'aanku wuxuu inaga qaadayaa alard inaan akhlada ila alard inaan dhulka ku waarno inaan isku dhejinno dhulka inaan ismoodno inaan dhulkani uu yahay meesheenii asalka ahayd waa qayb ka mida laakiin qaybta runtii waa samada bay idan qur'aanku taas buu inoo samaynayaa ikhwaanii fillah su-aasheen waxa weeye haddaba qur'aanka sidaas ah ee cajiibka ah ee ilaahay uu soo dejiyey ee qofka bini aadanka uu isku dhex helaya isaga dhexdiisa ee qur'aanku uu tusayo wuxuu yahay waxaa dhahdaa qur'aanku yasnacu insaaniyata alinsaan bini aadannimada bini aadamku qur'aanku sameeyaa rabbaaniyata alinsaan rabbinimada inuu ilaahay ku xidhan yahay buu insaan ku sameeya qur'aanku sameeyaa akhlaaqiyatu alinsaan itiinka iyo mooraalka iyo dhaqanka wanaagsan ee bini aadamku qur'aanku sameeyaa hada alqur'aan idan walaalayaal waxaan u baahannahay inaan baranno kayfa natacaamalu macahu siyaan ula dhaqannaa dadka muslimiinta ee maanta nool qur'aanka markay la dhaqmayaan qolada saxda ah intaan u tegin waa 3 qolo oo wada qaldan weeyaan qolo waxaa jirta qur'aanka xasuusata maalintay geeridu dhacdo waxay ku leeyihiin qur'aanka kaaleya noo akhriya waxaan ku akrinaa hooyadii baa dhimatay ciddadii baa dhimatay abtigii baa dhintay adeerkii baa dhintay walaalkii baa dhintay wakaana kitaab allah waxaad moodaa inay ka dhigeen kitaabkii ilaahay ee casiiska ahaa kitaabkii ilaahay ee cadiimka ahaa kitaabkii ilaahay ee ilaahay u soo dejiyey khalqiga inay ka dhigeen kitaab la xasuusto maalinta geeridu quraatay kitaabku geeriduna xasuusiyaa laakiin lama xasuusto markii geeridu dhacdo kitaabka looguma talagelin qabriga in lagu dul akhriyo waxaa loogu talagalay in la iskugu diyaariyo qabriga iyo maa bacda alqabri marka kitaabkii waxaan ka dhignay kitaab la xasuusto markii geeridu jirto qolo kale kitaabka quraanka waxay ka dhigeen kitaab maalinta jimcaha la xasuusto maalin bay xasuustaan waa kitaab muusimiya amba waxay xasuustaan bisha ramadaan quraankii bay furaan alla waa ramadaankii waa bishii quraanka marka ilaahay wuxuu jiraa un ramadaan wuxuu jiraa un jimcaha ayaamaha kale shaqa ku kale qur'aankuna wuxuu inaga yidhi salaada jumcaha markaad tukataan
هذه صلاة الجمعة لما يسان فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض روكا قلا شقتك واذكروا الله كثيرا إن بدن إلهي حصى. إذا قرآن كم مركز صلاة كنت كامها يا جماعة. إذا قالوا واحد كانت القرآن كشدة وقرآن الآخرية موسم وقتيال قارة قرصة حاضرة قرآن كضوء اللوبين كليا صراحة كقاعدة لا يذكرونه أبدا نرشو ذكو مجربة وحيدها قاركود مذوبو الله يقان مذوبو وحن قرقره يعني الله يقان معنا أمشي القرآن وينادو القرآن كما بران كريم عرب كيبا يأتكاذي القرآن كمجرعين كريم هذا لأن أكتود أهمية مال القرآن قواسنا وطيو إلهي كشاقي قرآن كيسا ونبي محمد يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إلهي ضد كيجي waxay ka dhigteen quraanka mid ay ka guuraan wal gariib waxyaab kalena waxa weeye ilaa maada hajaru maxay quraanka ku bedeleen sheekay ku bedeleen ciyaar bay ku bedeleen waxay ku bedeleen waxaan noloshooda wax u tarin waxay ku bedeleen heeso waxaan macno u sheegay macno badan aan adduunka ku soo kordhinayn iyo quraankii ku bedeleen ولهذا إخواني في الله مسلمين توصل حرام هذا أوفر ست المنطقة كما بحث الرأس قربا دال بكرك تكون القرآن قسم مقالة قربا مودين البحان لأن القرآن ما قرأ المعلومة القرآن ما أدويض وحقا بكرة هو أشياء كسودة البري هكذا يقولون تاسقوا الله ويقالوا بهذا القرآن إخواني في الله وكتاب كاس مركا تعفر على وحوي صدح صاروا قبحنا سنيبان القرآن كا ولا دخلنا أوكي وحاجة لسجال شيء أو القرآن كله دخل بكلمة وإن لو قرتنا وفي عن تاي لا قرآن دخل مرة وقنا سنتين أنا تكو هذه وحوي أحبابي في الإسلام مركا أن ربنا إن القرآن كان لا دخل وحوجه الرأي إن القرآن دخلنا وحوي إن برنا التعليم قرآن كان إلا برتو قراءة أخرس ديسة تلاوة ديسة قرآن كهبا له أخيها إلهي سودجي وطلق إلا أخي ما عد معاني لجيرتي معها عد كسوديسي وكله أم بعد كمارة حصري وكله أم بعد كمارة بدرود وكله أم بعد كمارة علماء ووين إلهي عد كسي وحاسي واهنو إلهي بقف كسي لكن وحالا قربا إن القرآن كأخردت سيدي أخر الليلي أدو أخردت سيدي أصود دقي كما أنزل سيدي لو صود دجيي إلا أخي قرآن حرف كي لو صود دجيي تجويدك ورتل القرآن ترتيلا إله النبي وحكي صلى الله عليه وسلم أخر القرآن كان هذا أخر يا سيدي وأخر لبجلي مركا أريد كوبادي وحوي إن أمبرنا حرف القرآن حرف القرآن تعليم وحكو جرا حرف القرآن القرآن إن أمبرنا حرف كيس أون آخرين كرنو أخرستها سنة أجر بحكو جرا وشيء دون أيضا برشدنا أجر كلا كجرا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الدونك وحا إنه خير بدن قفك قرآن كبرتا دات كان برا من تعلم القرآن نينك قرآن كبرتا ما قبرتا قرآن روح قرآن كبرتا وعلمه دات كان برا بني آدم كان قرآن كبرا كابا إنه خير بدن بوري نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا القرآن إلا برتم وأريتكم بدوي ولا قلنا قرآنك واجبك إنه هو الرأي قرآنك إنه لي وحوي أن نتعلم إن أنبرنا وكو الله أنبرنا القرآن الحمد لله سورة الفاتحة إلى سورة الناس سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة سورة الأعراف سورة الأنعام وحاول ما برنا التوبة أنفال توبة قرآنك ولا ما برنا إلا أنك سوى قاعدة مارتي قل أعوذ برب الناس ما أخرنا قرآنك الحمد لله بأن أقول إذا أنا أخرنا حاكو عيق قرآنك بركان برانو برشدي سواحا كميدا إنا برنا تفسير كيسا بقدر المستطاع إنا قرآنك تفسير كيسا برانو تفسير كقرآن كنا مداما
تفسير القرآن كوينه إلا أنا إمك إلا تفسيرك إلا أنا يربع بلعبين لبعد تنجير خير إلا ما أنت نما بدأ القرآن كتفسير كيسا كل يوم معلم والباب القرآن كتفسير كيسا علم ياخذ علم وين ما لكل ما القرآن كفسير السؤال يجوا علم بدن وكافة كذي بعيسى بركة قرآنكو لا وحنا يتجدد ولا يتبدد قرآنكو أوس جديد يا ما نباليهم لأنه إلهي مقيم إلهينا ما باليهم كل يوم هو في شأن إلهي ما والب إلهي ونور وجديد ونور ما دمانه كتاب كيسنا ما دمانه إذا القرآن كتفسير كيسنا هلا برت عربي هلا برت هذه لبرنكرو صومالي هلا برتو فرنسيسك هلا برتو إنجليزي هلا برتو بس فقط لبشي هلا شيء علماء القرآن كدغيسنيسيد inay yihiin ahlu sunna wal jamaa dadkii ahlu sunnaha inay yihiin oo quraanka aan ka khaldin laba inuu yahay qof caalima oo cilmigiisa lagu kalsooyo qofka aad dhageysanaysid amba aad akhrisanaysid labada shay faqat marka al-ilm at-ta'lim wa kawi arinta labaad waxana waa qiraa'ada waa akhrista lecture-ka quraanka waa in loo akhriyo maalin walba waa inaad wax ka akhriyo quraanka ilaahay wuxuu yiri faqra'i al-qur'an quraanka akhriya آيات كان إله وكل نبي مركا الوصول دجي قرآنك إلهي وحكولي تبارك وتعالى مركا وصول دجي قرآنك فاتبع قرآنه سيدا أن كوبرني أخري قرآنك أخري بعدين هو بقرآنك وإن الأخرين لذلك أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قرآنك أخريا فإنه قرآنك يأتي وحو إيمان لصاحبه قفك أغنيه يوم القيامة ما ننت قيامها شفيعا لسوء شفيعة قاضية سيكون شفيعة قاضية وعرنا يا هبينكي راتي وقت بدن بيقليه ويأخن جري ونفهم جري ما شيء دون أيضا إذا المسألة ده الله بعد وحوي إن القرآن كان الأخرين قفك القرآن كأخنيها وإنه اللي بشيء إلى عليه أم بصدق شيء ما إلى عليه كو حالة ده أتكسر وأنت هيبدل بركة القرآن كأخنسي ويسقط كو إن قبل ده أوجستي كنت ذا لابو inaad khushuuc iyo xuduur ku akhrido khushuuc waa maxay inaad adigoo ilaahay khaashacay akhridid iyo presence xuduur leh quraanka u imo oo la noolow wax badan marka quraanka ku taraya quraanka marka akhrinaysid joog meesha joogtid lidaalika waxaan aad ula yaabay culimadeennii hore rabbaaniyiinta ahaa xalullahi ahaa waxay oran jireen haddaad rabtid inaad ilaahay wax u sheegatid salaadku haddaad rabtid إنه إلهي وحكوه شاغنا قرآن أخري يعني هذا ربتي إنه إلهي كل شيء كيسته هذا كيسته معان أدريسه إلهي سكبتي إنه كل شيء كيسنه قرآن أخري هذا ربتي إن الإلهي له هذا الشيء أدوغنا صلاتكم الله بدأ حالو كسبنا مركا تاسينا ومهم مركا أرنت الله بعد يعني القرآن كل ربنا وأخرست قرآنكم وحن كذي كرنا صدح نوع كو وحوير وحوير إن صدح ذي بلاد مر قرآن كدبيس واتوير واتوقف بدن بانو جدا وقت إنه أنت كل لافين وقف بذي صدح ذي بلاد مر قرآن كآخر صدح ذي وحوية بشي مر قرآن كدمين دقينا وحوية طبعا كي عشبة مر قرآن كدمين أنت وحا كياري وقرآن أدقيت كو أخلص متى أمبليسي سنشيك دون مركا قرآنك عداد لما يسي والتقاني كده صدح ذي بلاد إنه كسومرين إلا أدقوا قرآن كي بردم هي هذيك لا سوي أورنجري إمام كي ويناي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أورنجري وحن كعب صونا يا إن كبيرو كو إلهي لي قرآن كوي كجورين أرنت صدحات وحوي الحفظ ما أمكن إن القرآن كحفظت أنت أتكريس حداد وذكريس إن حفظت الله حفظ حدانا تكرينا قرآن كوح كحفظ يعني القرآن كإلهي قلبك وحكي جيران ويري كرتيد سورة البقرة ويري كرتيد سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة إلى أي قرآن حداد وحاسو لكروين على الأقل جزء عما تبارك صور كقابان إخوار الله حفظك حفظ وقت قليل هذا من أعطى نفسه للقرآن أعطاه القرآن نفسه وقاعدة ويا قفك النفتي سقرآن كسية قرآن كنا وسسية من أراد أن يكون قرآنيا يذهب القرآن إليه قفك الرابعين قرآن النقضة قرآن كنا يساق وطرع قاعدة تضحى دي وحوي
inaan qur'aanka la xifdiyo wixii la karayo in laga xifdiyo xifdigu qur'aanka markaad xafidid wuxuu kugu sahlayaa inaad marka qaarkood qur'aanka akhridid adoo sariirta iska dul jiifa adiga oo gaariga iska wata adiga oo shaqaynaya adigoo meel iska fadhiya oo ta'amulaya adigoo masaajidka fadhiya oo masxafkii u kici kari waayey adiga oo maaragtay ciyaalkaagii dhex fadhiyo oo wax u qabanaya inaad qur'aankii akhrido ku dul akhrido yakana oo ciyaalkii ay dhegaystaan iyo ubadkii hadalkii ilaahay ay kaa dhegaystaan bay ku faa'iido badan buu leeyahay xifdiga arrinta afaraad waxa weeye walaalayaal qur'aanku wuxuu u baahan yahay atadabbur dib u eeg qur'aanku in la tadabburo in maaragtay la fiirfiiriyo arrinta afaraad aayad soo qaado qur'aanka ka mid ah akhri laa ilaaha ila allah maxaa ku jira cish macaha la noolow aayaddan la noolow maxay iga doonaysaa maxaa ilaahay uga jeeda aayaddan muxuu ka doonayay markuu soo dejinay aayaddan ilaahay muxuu uga macnaheedu maxay ahayd meelo badan ka akhri tadabbur samee adigana waxbaa kugu dhex jira ilahay waxbuu kaa tusi karaya qur'aanka tadabburkuna laba shay buu ilaahay noogu sheegay wuxuu yidhi dadka aan qur'aanka fiirfiirinayn qalbigooga waa la quflay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha ma quluubtaa laga xidhxidhay ma qur'aanka fiirfiiriyaanaa bu ilahay qur'aanku inuu ilaahay ka yimid waxaa ku tusaya markaad tadabburtid falaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira ilahay wuxuu yidhi hadduu qur'aanku ilaahay keyrkii ka iman lahaa khilaaf fara badan baa laga heli lahaa isdiidba badan iyo isku dhac badan baa laga heli lahaa laakiin maadaama ayna ku jirin oo isbuuxinayo wuxuu ku tusaya inuu ilahay ka yimid ila qur'aanka inaan tadabburno oon fiirfiirino oon maaragtay aayadaha jannada aayadaha cadaabta aayadaha geerida aayadaha nolosha aayadaha qoyska aayadaha bulshada aayadaha dhaqaalaha aayadaha siyaasadda aayadaha ilbaxnimada aayadaha qofka dhisaya aayadaha maaragtay ilaahay kuu xidhaya aayadaha qur'aanka ee waaweyn aayadaha kownka ka sheekaynaya aayadaha nafta ka sheekaynaya aayadaha ka sheekaynaya shareecadda iyo axkaamta aayadaha oo dhan inaan fiirfiirno aayadaha guurka aayadaha furitaanka aayadaha dhismaha aayadaha burburka subxaan allah kitaab allah waa kitaab cadiima weya marka waxaasoo dhan inaan tadabburno arrinta kale waxayaan ee shanaad waxa weeyaan waxa qur'aanku u baahan yahay reflection tadabburka waxaa ka khatarsan التأمل إن أنت ميل فليستي كلية سوق القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب سبحان الله تأمل reflection تعيش مع القرآن القرآن كلامنا ولو إلهي هذا الكيسة معانسو دردم جمالك وفرس القرآن معانك وفرس سيد قطب شيخ الرجل رحمة الله عليه ورجله إن القرآن نعمة القرآن هو نعمة لا يعرفها مقرن كرو إلا من ذاقها قفل دمية ما هنا القرآن كدردمي سكود إنا دردمسي سيد عنصد مركات كرينسي ملح كوبا دنطاي بسوكيرتها ما لعوني كرا بس لا ما عوني كرا
معان با بسبب خداد قرآن كله معان بولي لكن ده كان معان حبه هي قلبي معان حبه هي عقلي معان حبه هي إندم معان حبه هي دقة معان مركا أرنتاس هو مهم إخواني في الله محمد كان قايل تأمل القرآن إلى تأمل ريفلكشن ما هي اللي سكاخ اليوم لبا آية ضد بقوة في الغانسي آيتان من كتاب الله سورة الملك ذاك قاتل مثلا لبا آية ورسة تبارك الذي بيده الملك إله قعنتي سيكون جرتو بقرتو يدو وهو على كل شيء قدير شيء والبركة أولى إنه سمعه يفعل ما يشاء معبود كايو خلق الموت الذي خلق الموت جيريدي بالهرسي والحياة نرشد والد بسي لأن أصل كجيريدي هرسي بين جرين بين الماء هذا روان إيماننا هذا روان إيماننا هذا روان إيماننا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور انت بدل القرآن وحس راعيها الغفور الرحيم اسم الراعي العزيز يا الغفور الراعي العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بس انت بدل القرآن لكن ما لها يرير يسمع وما لها العزيز الحكيم الغفور بوجده لماذا غفور ما حيكر ينتهي قف إله أسوى النقضان ودم بدافع عزيز ما حيكر ينتهي جيري وأمر وحوضه وصميع أحد أمر كيسا كوري من كريم الجو قفران كريم وحو سمين محاوصة سمين إله لما حسابي سنة وحسابي لا يسأل عما يفعل وحو سمين يا إله اللي بويدي هم يسألون أنا تسأل اللي ويدينا يعني فسوى مهم جدا إخواني في الله تأمل كل بلكشنكم قرآنك إن دي تقولي مالكو يا لأت فلسطين وتكلي قرآنك لأنه لا تكلي بدون أي إنسان قفنا كل جوب إيش مع القرآن هذه هي قرآنك صاحب النغضة أنت لحاد وحويان التذكر تأملك تدبر وتدبرتي وتفيرفيرسي ريفلكشن بس سميسي وتأمل شيء تي وحاول ما لسا لحاد تذكر وتحسسنا يسمى الله إلا سنبعد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكان مقنابة كوسا نقونيا واحد اللودي بعد حسسنا يسمى وهذا مركي ولا كنت لجرين بعد أركيسا تذكر وإنه لتذكرة للمتقين قرآن وحوية هي حسوس بوية هو إلهي كبقية يعني دبوا كو ترتيبنا يا قرآن ترتيب محل على إخواني في الله قفكم مركو هوري إلهي وصور رتبان طاي مركي أدونك أدقشت وكلا قوقو عيسا ترتيبتي بكا حمانيسا محاكوسا ونقوني مكا قرآن كأخذين ترتيبتي وتحسسنا يسا مركا قرآن كوحباية تذكر سورة بانت وحن بهني سورة الفرقان ولذلك علماء وحين هذا أنا أقول كواس وكجرا وحين هذا وحين هذا قفكم حولي دور سورة القرآن كجرا القرآن كله وين آخرنا لكن دور سورة بعدك يدو أتفهم كثير أنا أقول سورة عن القرآن كعجيب وهلو لأنه والله هاي القرآن كله وهلا وحكم إلى سورة مريم كاف هاي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا سورة عجيبة ويا وحكلوا الآن يتابستها سورة النحل وحكلوا الآن يتابتها سورة الفرقان وحكلوا الآن يتابتها سورة الرعد سور وحاجرة وفك بني آدم كي خاصة وتابتها قرآن كونا نو كتابنا لأنه وكلام كي إلهي مركز كوانا دون تذكر شخصيات دارت كده حديثها برسولمتي قاعدة أنت تضبادي وحوي إخواني في الله أنت تضبادي المهم كأوحوي العمل القرآن كان له ضخمه قرآنكم ما كتاب فلسفة ما وما أخرنا لأجل إثراء العقل إنه عقلي وين هذا القرآن وما أخرنا لأجل تنمية الذات إلى ديفلوبيما أسمينه وقرنه وما أخرنا لأجل تفعيل إلى استهجاجنا القرآن القرآن كأخرنا أمر إلهي كجر إلهي إنجرينه وقل اعملوا إلهي شقيا فسيرى الله عملكم إلهي شقدوا إني أبال مريدونا ورسوله رسولكنا وكفر حدونا والمؤمنون مؤمنين تنوحات شقيسين باوحو تريدون بالتالي إلهي وحو قرآن كيسا كولي
markuu inoo sheegaya aakhira maxay naafacaya fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun wixii aad shaqaynayseen buu ilaahay niga abaalmarin tujzawna bima kuntum tacmaluun wixii aad qabateen buu ilaahay niga abaalmarinay iyo raxmadiisii baa lasoo kala dari tabaaraka wa tacaala idan marka toddobaad waxa weeye qur'aanku wuxuu u baahan yahay alcamal in qur'aanka la hirgeliyo in la dabaqo weliba sida ugu wanaagsan loo dabaqo qur'aanka marka qur'aanku wuxuu ku amraya markaad hooyo tahay inaad odaygaaga adeecdid inaad dabaqaysaa qur'aanka inaad la tashatid qur'aankii baad dabaqaysaa inaad ciyaalkaaga korisid qur'aankii baad dabaqaysaa inaad naxariis yeelatid qur'aankii baad dabaqaysaa inaad salaad fiican tukatid qur'aankii baad dabaqaysaa inaad suuntid qur'aankii baad dabaqaysaa inaad qur'aanka akhridid qur'aankii baad dabaqaysaa inaad bini aadamka hadal fiican kula hadashid qur'aankii baad dabaqaysaa inaad basharku kaa nabad galaan qur'aankii baad dabaqaysaa inaad xanta iska daysid qur'aankii baad dabaqaysaa isku diraadiraad inaad iska daysid qur'aankii baad dabaqaysaa inaad maaragtay dadka bini aadamka u naxariisatid waxaasoo dhan waa qur'aankii waxaad noqonaysaa qof qur'aan marka dul socda kalaamullahi yataxawalu ilaa mashruuc hadalkii ilaahay baa isku bedelaya project adaa noqonaya projectigii qur'aanka u dhaqmi subxaanaka maa cadamaka arrintaasi waa muhiim iyadoo waqti toddobaad weyn toddobaad weyn sideed waxa weeye addacwatu ila alqur'aan dadka qur'aanka ugu yeedh walaalayaal arrintan waa muhiim bini aadamku adduunka meeshay dooni ha joogaan maanta waxay u baahan yihiin qur'aan haddaad tahay hooyo wanaagsan ciyaalkaaga qur'aanka u baahan yihiin bar uguna yeedh haddaad tahay oday wanaagsan xaaskaagu qur'aanka u baahan yihiin bar uguna yeedh haddaad tahay gabadh shaqaysa dadka aad la shaqaysid ha kala sheekaysan waay iyo maxay iyo waxaas u sheeg inuu qur'aanku yahay muhiim kaadooga weynna sii kartid waa qur'aanka wey isku bedel mashruuc qur'aan dacwad ilaahay haddaad tahay qof bini aadan la hadla qur'aanka dadka u sheeg kalaamullah annaas yaxtaajuuna ilaa hada alkalaam bini aadanku maanta qur'aanka u baahayay ninkii islaamay ee maaragtay maurice bucaille la oranayay ee dhakhtarka weyn ee faransiiska ahaa ee jaraax ahaa jeexista ku takhasusay markuu islaamay wuxuu yidhi waxa ugu weynan dadka aan u sheega markaan meel la fadhiisto waxa weeyaan waa kitaabka qur'aanka hadiyadda ugu weyn ee siiyana waa kitaabka qur'aanka marka isagu wuxuu helay qur'aankii maurice bucaille waa ninkii qoray l'homme du XXe qofku halku ka yimid qorayna kitaabkiisii kale khatarta ahaa injiilka iyo qur'aanka iyo tawraat iyo cilmiga isku kompaariyey marka ninkaas markuu islaamay qur'aankii buu helay roger garuudi markuu islaamay promesse de l'islam buu qoray islaamku waa qur'aanka dadka nolosha u hagaajinaya waa inaan barno maaragtay dadku marka ay diinta fahmaan bay fahmaan qiimaha qur'aanku leeyahay anagu waxaad moodaa inaan noqonin geed biyo ku dhex engeliyo ilan geedka biyaha nooleeya hadduu geedkii biyo ku engego biyaa daweynaya ma jiro ma noolaan karayo markaasaa daraaddeed waxaan u baahannahay inaan dacwo ilayhi qur'aanka dadka ugu yeedho arrinta sagaalaad ee ugu dambaysa waxa weeyaan inaan samayno muraajaco dib u eeg ku noqon wixii aan soo arnay barashadiisii inaan dib u saxno akhristiisii inaan dib u eegno xifdigii inaan dib u eegno tadabburkii inaan dib u eegno reflectionkii inaan dib u eegno xasuustii inaan dib u eegno inaan dib u eegno camalkii iyo dacwaddii muraajaco inaan dib had iyo jeer ismuraajacayn alawaab inaan ilaah u laabano subxaanahu wa tacaala intaas sagaalkaa shay ayaan isleehay waxaan u baahannahay haddaan nahay dad muslimiina gaar ahaan ikhwaanii fillah walaalayaal akhwaatii fi lislaam gaar ahaan dadkeennan ku nool galbeedka ku nool caalam saddex arrimood leh caalam materiyaal ah waa maaddo meeshaad u baxdidba waxay ku codsanaysaa maaddo suuqaad tagaysaa macdaro waaweyn waa maaddo baabuuro waaweyn waa maaddo guryo waaweyn waa maaddo dhar qurux badan waa maaddo wax kastiba wuxuu kusiyaa materiyaal shozism shay'iya wadaalisa arrinta labaad dhulkan aan ku noolahay ma arkaysid qofku xasuusinaya allah wadaar alaakhira dadku inta ugu badan baska hadday la socdaan jidka hadday socdaan
ما مقلسد إلهي كبقي آخر حسوسه لا تسمع كثيرا مش واحد يقول له بي صدح هذا كان ay leedahay waa maxay waxa weeyaan dadku kali u nool yihiin islama noolo dadka wax adimi waxa weeyaan waxa loo yaqaano individualism alfardaniya qof walba kaligii buu nool yahay qof walba dantiisu ka shaqeeya antares maslaxadeedan ka shaqeeya saddexdan shay qofka bilaadka uu diraa maadada iyo inuu qofku iloobo in ilaahay la xasuusiyo iyo inuu noqdo qof maartay interest ah maslaxi ah saddex qofka bini aadamnimadii dilaa wuxuu noqdaa qof tacaaqudi ah bini aadanka contract kula nool kii jecelna waa jeclaa kii maartay dan igu jirto ma seerani kii dan igu jiro maxaan ka doona aqliga caynkaasa aqliga loo yaqaano pragmatiga manfaciga laakiin aqliga islaamigu kaa maaha aqliga islaamigu noloshu macaanaya akhwaan marka saa daraadeed waxaan u baahannahay dhulkan aan ku nool lahay inaan wehel ka dhigano hadalka ilaahay wax badan buu ina xasuusinayaa hadalka ilaahay wuxuu inoo soo celinayaa waxaan ahaan jirnay iyo waxaan inaan noqonna ah wuxuu inoo xadidayaa halkeen u soconna halkeen tagayna beritooda ilaahay markaan hor tagno muxuu inoo weydiinayaa insha allah waxaan jeclaan lahaa inaan sagaalkaa shay la qorto lana isku dayo in la dabaqo maxaa yeelay waxaa inoo soo dhow bishii ramadaankii qur-aanku soo degoo dib la isku xisaabiyo waa maxadaad waa la gaaro waa stationno qofku inuu istaago loo baahay station weeyaan waa meel inaa istaagtid ramadaanku oo dib isku egtid man anta maxaad tahay maadaa facalta maxaad samaysay maadaa taragta maxaad ka tagtay ماذا يجب أن يفعل محاد هنا سميشو سمين ويدي محاد إنا سمين أهيدو سميسي حساب من هذا الحساب شيء كديما فروق سعودي جزاكم الله خيرا مرحبا إن شاء الله دعاءنا واسكسوا الغضونا سؤالها كديب إنتا ساقبحي ومهسنتهين أخواني في الله أحبابي في رسول الله إلهي كلمة داسان وانفعوا أختي كلتوم وانكبحي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله الخير خير الجزاء إلى كابال مريو أول مركب ونكسن